wararka ka imanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in aabe uu dilay laba caruur oo u dhalay. Booliska ayaa falkan la xiriiriyay maandooriyaal inkastoo baaritaan socdo. Wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa dilkan ka waraystay taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee Puntland Muumin Cabdi Shire. Wallahi waxay ahayd dhacdo xanuun badan. Aabeba caruurtii isagu dhalay buu dilay laba wiil oo si arxan wali oo ka baxayna iyo maalin barkaas inta aaminsanahay oo Afrika saac ku dhawaad ama ka badan ba umeedkooda la joogay oo meel la raacsanay isaga markaa waa arrin aad u adag oo dadku aysan aamin karin ka dhacday meel waa arrin xanuun badan taliye markay noqoto dhacdada haddii qoyska ay baaris ku sameeyeen ma la ogaaday sababta keentay aabahan in uu laba caruur oo dhalay uu dilo uu keeni karo ma garan karo marka waa laakiin waxa aaminsanahay baraagis tira badan uu cunay oo iyaga meesha ka saareen oo khamri ku jiraan iyo waxyaalo kale baaris baa socota waxaan leenahay waa maandooriyahaas ugu badan dhibaatada ugu badan waa halkaas caafimaad ahaan mal in uu miir qabo iyo inuusan miir qabin waxaan leenahay waa weli baaris caafimaad baan mataqaan u wadnaa laakiin ma qabo inuu waxaan daroorada ahayn jiran ma aaminsani caruurta labada ah ee uu dilay labada wiil ah bal haddaad inoo sheega ahaan in jireen bal magacyadooda tobanjir bay ahaayeen midna tobanjir iyo kuwa tobanjir ciidanka booliska hadda gacanta ku haya maxaa idinkaga qorshaysan oo aad rabtaan in laga qabto wallahi waxaan samaynaynaa kiiskan waa diyaarinaynaa maxkamadan beenaa sharciga wuxuu ka qabo dhinaca kalena waxaan rabnaa inaan dadka uga diidino in maada khatara aysan fahamsanayn inay kiis weyn ama dembi weyn tahay markastoo ciidanka booliska ku hawlgalo oo dadka maandooriyaha la dagaalamo waxayna u garbinayo waxa wajoodaya badan oo boolisku dhaawaceen kuwa xuquuq ka raadinaya marka in dadku ay la shaqeeyaan booliska sidii loo soo asari lahaa hawsha iyada